wafdigii nabadeynta beelaha walaalaha ah ee ku dirirayay Sacad iyo Leylkase ay garwadeenkana ka ahayn beelaha Habargidir iyo beelaha Daarood maanta wafdigii quruxda badan ee halkan soo gaaray degmada Bandireley oo ku guuleystay nabadda hordhaceedii kala qaadana ciidamadii runtii halka isku horfadhiyay wafdigaas ayaan rabnaa si qurux badan inaan soo dhaweeyno waxaan rabnaa inaan dhahno soo dhawaada ku soo dhawaada Bandireley ku soo dhawaada hooyga nabadda dib u heshiisiinta degmada Bandireley waan soo dhaweynaa hadaan dhahnay Bandireley awal baan waxaan hor u soo dhaweynay nabadaas ay u fadhiyaan odayaasha dhaqanka iyo culimada diinku maantana si mugla ay bulshada Bandireley isugu soo baxday in ay soo dhaweyso nabadaasi oo runtii ay wax kasto ay u hori karaan bulshada ay u horaan marka waxaan rabnaa inaan dhahno soo dhawaada ku soo dhawaada Bandireley nabad waxaan leenahay walaalayaal nabad ayaan leenahay nabad ayaa naas la nuuga leh colaad waxa ay reebta lama arko hanado iyo wiilal runtii geesiyaal ah oo dalka iyo dadka iyo diinta difaaci lahaa ayaa runtii colaadaas nooga baxahayo marka waxaan leenahay walaalayaal nabadaas sida maanta ciidamada lagu soo kala qaaday waxaan leenahay aan u qaadano andaanahay reer Bandireleyna waan soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaa ku soo dhaweynaynaa muxubiya kal gacayl baan ku soo dhaweynaynaa bulshadeynta marka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo beelaha walaalaha ay halkaas runtii ku dirirayo meel kasta ay joogaan waxaan leenahay walaalayaal nabadaas aan soo dhaweyno aan u guntano inaan runtii ma ka mira dhalino wafdiga quruxda badan ee runtii juhdiga iyo dadaalka bixiyana waxaan leenahay waa mahadsantihiin jasaakallahu khayran ilaahay ajri xasanaha ka siiyo waxa kala badbaadiseen dhiig islaam ah oo ilaahay uu maartay sheegay dhiigaas qofkii daadiyo sida uu yahay ayaa kala badbaadiseen waxaan leenahay nabadda halka ka sii wada waan kaga mahad celinaynaa ajri xasanaadna ilaahay waan ka sii doonaa wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh